marna ma ilaawo oraahdii noloshayda beddeshay oo dhanka guusha ii horseeday. Maalin dhaweeto ayaa anigoo badweynta internetka isaga dhex jira waxaan isha ku dhuftay hal mar qormo ama maqaal ciwaan looga dhigay oraahdii noloshayda beddeshay dhanka guushana ii horseeday. Isla markiiba anigoo suula qormadii ayaan ku dhuftay oo aan bilaabay inaan akhriyo. Gabar qoraa ah ayaa waxay nala wadaagaysaa qiso nolosheeda oo dhan beddeshay, kuna abuurtay inay isweydiiso su'aalo fara badan oo aysan horay isku weydiin jirin. Waa qiso aan dhammaantayo ka baran karno casharro naga anfaca mustaqbalka iyo haddaba. Saaxiibayaal, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinka codsanayaa in aad like iyo subscribe ii saartaan kanaalkan. Waxay ku bilowday sheekadeedan xiisaha leh. Sanado badan ayaan waxaan ku dadaali jiray oo isku dayi jiray inaan dadkoo dhan wada qanciyo oo qof walba aan haye iyo haa u iraahdo. Inaan ballanqaadyo iyo culaysyo dhabarka saarto kaliya si ay dadku ii ammaanaan oo ay ii yiraahdaan heblaayo ama hebel waa qof wax walba laga helo, waa qof aadan ku hungoobayn, iyo ammaanaha faraha badan ee carabyada dadka aan dhaafsiisanayn. Maanan aqoon sida loo dhaho bay tiri kelmadda maya waxaas ma awoodo. Dan walba oo qof iga soo yeesho ama wax walba oo iga soo baahdo waxaan isku dayi jiray inaan nacam u iraahdo, xitaa haddii aanan awoodin anigu, kaliya si aan qofkaas u qanciyo. Laakiin hal dhacdo oo aan la kulmay ayaa noloshaydii oo dhan beddeshay. Waxaa jiray qof aan qaraabo ahayn, si joogto ah ayaan u booqan jiray, aadna waan u caawin jiray. Garabkiisa ayaan taagnaan jiray dhibaato walba oo soo wajahda. Mushkiladaha haysta ayaan ka dhagaysan jiray, deedna tale iyo tusaale ayaan ku biirin jiray. Mar walba hiil iyo hoo ayaan la garab taagnaa. Walow uusan qof la qancin karo oo ay u muuqdaan wanaaggaas ahayn, haddana dadaalkayga oo dhan waxaan ku bixin jiray inaan qofkaas qanciyo. Mar walba wuxuu rabo aan haye iyo haa u iraahdo. Daciifnimo ama dan gaar ah oo aan isaga ka leeyahay iguma khasbeen arrimahaas ee noloshayda ayaaba saa iska ah oo saa u samaysan. Inaan isku dayo inaan dadkoo dhan wada raali geliyo oo haye iyo haa u wada iraahdo, xitaa haddii ay aniga dhibaato igu keenayso arrintaas. Waxaa la soo gaaray maalinkii ay noloshayda oo dhami isbedeli lahayd. Haa, waa maalinkii ay noloshaydu wareegi lahayd 180 digrii. Waxaan garab fadhiyay qofkaas aan ka soo sheekeeyay. Waxaana la fadhiyay dad aan qaraabo nahay oo soo booqday. Dhammaantayo si caadi ah ayaan wada sheekaysanaynay. Mar ayaan dadkii u sheegay inaan mar walba garab taaganahay qofkii aan qaraabada ahayn oo aan aad u caawiyo. Sida caadada ah waxaan islahaa waa kugu waafaqayaa oo aad ayuu kugu mahadcelinayaa. Laakiin arrintaas ka duwan baa dhacday. Wuu isoo fiiriyay qofkii isagoo indhaha igu gubaya. Dadkii waa yaaban yihiin oo labadeena ayay hadba mid fiirinayaan. Hal mar ayuu qofkii wuxuu igu yiri, maxaad ii qabatay aniga? Bal carsheeg hal wax oo aad ii qabatay oo aad igu caawisay. Dadkii meesha nala fadhiyay ayaa yaabay oo hoos isku fiiriyay. Ilmo u dhalay qofkii ayaa damcay inuu xaaladda dejiyo oo anna bal niyadda ii dhiso. Laakiin qofkii hadalkiisii uu ku inkirayay caawimaadii iyo garab istaagaygii ayuu iska sii waday. Yaxyax iyo wejigabax ayaan la fadhin waayay goobtii. Nasiib wanaagsan meeshii waa lagu kala tegay mar dambe. Anoo niyad jabsan ayaan albaabka ka baxa. Boqolaal su'aalood ayaan isweydiiyay. Miyaanan caawin? Miyaanan wax walba u samayn? Ugu dambayn waxaan xaqiiqsaday in khaladku dhankayga yahay. Inaan rabo inaan isku dayo inaan qanciyo dadka oo dhan, taas oo aanan marnaba suuragal noqonayn. Sida ugu liidata ee qof u noolaado waa inuu isku dayo inuu dadkoo dhan qanciyo oo ka wada farxiyo oo waxay rabaan u wada sameeyo. Inuusan waxba diidi karin oo uusan dhihi karin arrintaas ma samayn karo. Haddii uu kugu dhaco cudurka la yiraahdo dadkoo dhan wada qanci, nolosha wax mowqif ah ka yeelan maysid. Fikrad iyo mabaadi iyo waxaad aaminsan tahay yeelan maysid. Waayo go'aan walba oo aad qaadato dad baanan jeclaysanayn. Marka si aad dadkaas u qancido waa in aad ka tanaasusho go'aamadii aad qaadatay. qayb badan oo kamid ah dadka ayaa waxay isaga khaldan inay dadka si wanaagsan oo dabacsan ula dhaqmaan oo ay u caawiyaan iyo inay isku dayaan in qof walba ay qanciyaan. Tusaale ahaan, qof ayaa lagu leeyahay hawshaas uu hebelka codsaday ma awoodid ee u sheeg inaadan awoodin. Markaas ayuu leeyahay ma rabo inuu hebel khalad iga fahmo.
yacni qofkan wuxuu isku dayaa inuu qof walba nacam u yiraahdo xataa haddii codsiyada iyo waxyaalaha looga baahan yahay ay yihiin waxyaalo uusan awoodin. yacni ma dhihi karo waxaas ma awoodo, wuxuu isku dayaa inuu qanciyo qof walba. wax dhib ah ma lahan inaad dadka caawiso oo aad dhibaatada la qaybsato oo aad garab istaagto xilliyada ay gacan qabashada kaaga baahan yihiin. laakiin dhibaatada weyn waxa weeye markaad isku daydo ee aad isku khasabto inaad mujtamaca aad la nooshahay oo dhan aad wada qanciso adiga oo raadinaya in ay dadku ku wada jeclaadaan oo ay ku wada ammaanaan. taasna macquul ma ahan. marka sidee ayaad iska joojin kartaa inaad mar walba isku daydo inaad dadkoo dhan wada qancisid? qodobka koowaad waxa weeye ha ku degdegin go'aan qaadashada. tusaale ahaan, qof markuu ku weydiisto inaad wax u samaysid isla markiiba ha ugu jawaabin waan kuu samaynayaa waxaas ama kuu samayn mayo waxaas. intaadan go'aan qaadan ka fiirso waxaas inaa awoodo iyo in kale. culaysaadan awoodin korka ha iska saarin adoo isle qof hebel ama dad hebel qanci. isbar inaad dhihi kartid marmarka qaar maya waxaas ma awoodo hadda. qodobka labaad waxa weeye markaa qof ku tiraahdid maya waxaas ma awoodo ha ka dhaqaaqin qofkaas isla markii isku day inaad fahansiiso oo aad u sharaxdo sababta aadan dalabkiisa u fulin karin. qodobka saddexaad waxa weeye ka fiirso ballanqaadyada aad samaynaysid. waxaa laga yaabaa inaad si fudud wax u ballanqaado. tusaale ahaan, inaad istiraahdo waxaan hadda ma awoodidee bal qofkan ballanqaad 2 bilood kadib u samee. laakiin 2 bilood ay soo wareegto adiga oo weli ku jira duruufihii aad markii horeba waxaan u samayn weyday. marka ka fiirso ballanqaadyada aad samaynaysid. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad si ay xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in aad like iyo subscribe ii saartaan kanaalkan. sidoo kale waxaa jira page aan ku leenahay Facebook oo isla magaca kanaalkan wata waa Yamyam Balase, kaas oo aan si maalinla ugu soo gudbino dhacdooyinka yaab kale ee dunida daafaheeda ay ka qorto saxaafadda adduunku. waa maasantihiin, waa noo xalqad kale oo xiiso leh. nooli kulantee guuleysta saaxiibayaal.